iyadoo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga dhigtay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa waxaa saaka ka hadlay xariga wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon qaar ka mid ah suxufiyiinta gobolka Togdheer iyagoo ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xorriyadiisa dib ugu celiso wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ku xiran xabsiga magaalada Hargeysa. wariyaashu hadalkaas ka daba qaatay ayaa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in wariye Cabdimaalig xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxaana kamid ah hadaladoodii. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ugu horeyn waxa halkan isugu yimid wariyaashii gobolka Togdheer qorsheegtu waxay sheegaysaa ilaa iyo 11 subaxnimo marka xarigaasi anagoo ka xun maanta halkan isugu nimid inaan xariga ka hadalno. ugu horeyn anigu ra'yigayga haddaan soo jeediyo waan ka xumay xarigaasi lagula kacay in Coldoon xukuumaddu waxaan oran lahaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo xal maaha in wariyaasha la xidho xal maaha in la xidho abwaanada Soomaaliyeed xal maaha in la xidho xildhibaanada Soomaaliland. runtii anigu waan ka xumahay xarigaasi sababtoo ah xukuumaddu waxyaabaha ku yara xadgudubta waxa kamid ah in waxyaabaha xorta ay kala fahmaan xukuumaddu iyo waxyaabaha shakhsiyaadka xariga u dhigma in la xidho. waxaan ra'yigayga qabaa anigu wariyaasha iyo abwaanada fanaaniinta runtii in iyaga xarigaasi laga daayo jeclaan lahaa waayo iyagu waa wax bulshada Soomaaliyeed u siman markaad eegto abwaanka iyo markaad eegto suxufigaba. Cabdimaalig Muuse Coldoon runtii wuu tagay xamar anigu waxaan oran karaa dawladda Soomaaliyeed oo walaalo Soomaaliyeed diir bay naga dhaxeeya iyo waliba af ay naga dhaxeeya. Cabdimaalig Muuse Coldoon wuxuu hayay xil xukuumaddu ka gaabsatay wuxuu hayay xil runtii aad u tiraya badan runtii in Coldoon wuxuu dad xuski ka lumay ayaan oran karaa uu soo celiyay runtii sidoo kale dad niyad nolosha ka dhacay oo kaba qoostay ayuu runtii in Coldoon Cabdimaalig Muuse Coldoon runtii uu nolosha la sameeyay soo gaarsiiyay. waxaan oran lahaa halkan xukuumadda waxaan ka oran lahaa soo xaree amxaarada xilsi hana xamaasaynin xamar ruux u dhoofana xabuus xarigna weydaari xorriyadana ka qaado xidhxidha xira ku aamuga la antay xal maahe la xal xulalka Soomaali. haddii xamar maxaa ku dhigay laga xanaaqaayo oo xabsiga ninkii juqiraan lagu xareynayo xariga ana xoreeye bal xalaaneeya oo xirada raarteed idhiga ina xajiimeeya aniga xaadiro xamar rabe xeerka igu qaada. kulay maanta halkan waxay dhamaanba warbaahinta qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer ay iskugu yimaadeen sidii ay dareenkooda uga hadli lahaayeen xariga loo geystay samafalay suxufi Cabdimaalig Muuse Coldoon. maanta muu ahayn runtii in xabsiga la dhigo wuxuu ahaa in la garab istaago oo hawsha uu hayo lagu garab istaago. maanta xukuumadda Soomaaliland maanta waxay ahayd in ay hawlaha uu hayo ay garab ku siiso gaar ahaan ololaha warbaahinta kaalmee kuwan ay garab ku siiso sidii ay dadkan ay daryeelayso ay ula daryeeli lahayd. Cabdimaalig Muuse Coldoon meel uu ka leeyahay qadiyadda Soomaaliland ma jirto lama maqal waxa lagu haystaana ma aha qadiyadda Soomaaliland. runtii waxa lagu haystaa xamar maxaad u tagtay xamar cid kastaana way tagi kartaa cid kastaana way ka soo noqon kartaa. xamar may noqon cadaabti ama jannadii midna may noqon xamar waa magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaalidu degto. Cabdimaaligna Soomaali meel ay joogtaba horta uu jecel yahay ka xamar jooga iyo ka Jabuuti jooga iyo ka Burco joogaba isku si buu wada jecel yahay. maantana maaha in aragtidiisa lagu dhaleelo oo la dhaho sideebaad aad xamar aad u tagtaa amaba aad farmaajo aad u taageertay. farmaajada shacabka Soomaaliland ayaa taageerayba oo Facebook soo dhigayay farmaajo. markaas waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay xorriyadiisa u soo celiso samafalay suxufi Cabdimaalig Muuse Coldoon. waxaanu leenahay ilaa iyo inta xabsiga ka soo baxayo annagu waxaan leenahay free Coldoon. maanta halkan waxaynu isugu nimi inaynu ka hadalno xariga lagula kacay samafalay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo iminka muddo dhowr iyo 10 cisho ku xiran magaalada Hargeysa oo waliba aan sharci la soo taagin. runtii lama oran karo Cabdimaalig sharci darro ku xiran yahay. Cabdimaalig uu qirtay dambigii sida la sheegay inuu galay balse xamar in la tagaa xaraan maaha oo xamar dawladtii kara oo darjaarkeena oo loo dhoof kara oo wadan dawlanahay
balse waxaa xaaraana in la dafiro jiritaanka qaranka jamhuuriyadda somalilan taasna cabdimaalig muu samayn madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud waxaan ka codsanaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne madax meel la taabto ka saraysaa ma jirto waxaan kaa codsanaynaa inaad xorriyaddiisii u sii celisaan cabdimaalig muuse coldoon cabdimaalig muuse coldoon wuxuu ahaa samafale dadka u shaqeeya oo dad badan oo dan yara oo tabaalaysan oo hoy iyo hutoonna aan haysan ayuu cabdimaalig quudin jiray oo uu ahaa ilaa ay quutaan buu ahaa waxaan odhan karaa runtii cabdimaalig wuxuu ahaa shakhsi horumar ku suntan oo gobolka togdheer iyo guud ahaanba dhulka soomaalida ay degto magac iyo maamuusba ku leh cabdimaalig haddii uu dembi galay waxaan leenahay howlihii samafalka ahaa ee uu samayn jiray dadka tabaalaysan ha lagu cafiyo ha lagu soo daayo mid kalean ku darayaayo waxaan ku darayaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto waxa uu habeenkii la xiray cabdimaalig uu hadlay waxa uu warbaahinta ka yidhi hadallo curfiya oo runtii cabdimaalig liddi ku ahaa xaq wuxuu lahaa inuu dhexdhexaadiyo saxafiyiinta somalilan muu hayn inuu dhinaca garabka saaro oo yidhaahdo ha la soo xidho wixii isaga iyo wixii kala tegay waxmar waxaan leenahay ilaahay mid dhaama sooljaha ugu bedelo xuuto inkastoo waqtigiisiiba uu gabagaba yahay cabdimaalig muuse coldoon wuxuu ahaa nin saxafiya samafala ah oo runtii qabta waxyaabaha inaan qaban dadka inta badan xukuumad ha ahaato shacbi kale ha ahaato iyo warbaahinta kale ee gobolka iyo dalkuba waxyaabaha inaan qaban buu qabtay cabdimaalig muuse coldoon wuxuu caawin jiray oo samafali jiray uguna gargaari jiray dadka masaakiinta ee ku dulman ku dhibaataysan isla markaasna toostu iyo xanuunka iyo gaajada ku hayso magaalada burco ayna cidna ka warhayn xukuumaddii soo doorteen maamulka gobolka ka degmada iyo shacbiga kale ee wax haysta waxyaabaha aan u samayn jirin buu samayn jiray runtii cabdimaalig muuse coldoon xadhigiisa aad baan uga xunnahay waxaanu dalbanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan xorriyaddiisa u helo cabdimaalig muuse coldoon waxaan leeyahay hadduu khaldamay waxaan leeyahay dowladda ha cafiyo sababtoo ah bini aadan baynu nahay waynu khaldami karnaa bashar baynu nahay waxaa la yidhi carab iyo labada daan baa iskugu dhowo isqaniinaan marka waxaan leeyahay hadduu qaldamay ha la sii daayo isla markaasna wanaaggii iyo samafalku soo qaban jiray maanta dib ha loogu eego oo ha lagu sii daayo oo taa ha lagu dhaafo ilaa shalay ilaa isbuucii gudihii lagu jiray waxaa dhammaan suxufiyiinta gobolka togdheer ay si weyn uga hadlayeen xadhigga loo geystay samafale cabdimaalig muuse coldoon oo run ahaantii ah shakhsi ku suntan adeega bulshada xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo hoggaanka waayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaanyo waxaa si sharaf leh xushmad iyo karaamo leh uga codsanaya inay soo dayso samafale cabdimaalig muuse coldoon qofka biniaadanka khalad uu geli karaya wuuna ka soo noqon karayaa waxaan si mug leh uga codsanaya xukuumadda in ay xorriyaddiisii dib ugu soo celiso sababtoo bulsho badan ayaa tabaysa bulsho badan ayaa sugaysa hadalkan wuxuu ku soo koobayaa in dhammaan bulshooyinka Somaliland xukuumadda cid kasta oo jecel cabdimaalig muuse coldoon dib loo soo celiyo xadhigiisa ay kor u qaadaan sidii ay dib loogu soo celin lahaa isla markaana bulshada uu sii wadi lahaa adeega ugu jiro cabdimaalig muuse coldoon oo muddo 2 toddobaad ku xidhnaa magaalada Hargeysa xarigaas oo aanu aad uga xunnahay waayo maanta Somaliland waxyaabo badan baa dhibaatooyin badan ayaa xagga saxaafadda ka haysata maalin kasta oo wadarkaysa wariye ayaa si sharci darro la iskaga xidhaya masaajidka la iskaga ridaya midaan ku hadlayno waxay tahay maanta go'aanka hal sharci baa hor yaalo saxaafaddu ay lahayd waliba sharciga aan la ansixin ay Somaliland aanay ansixin waxaanu leenahay sharciba uma laha saxaafaddu maanta Somaliland sharciba ma leh marka in cid la iska xidho ما هو أنصحه هذه وخلت قلنا خلت كيسة وين محكمة الشهور تعجو هذه كلا أنا واحد بيلاهين وين لسكسي دايو runtii waxa halkan suxufiyiinta gobolka Togdheer sugu yimaadeen maanta in dareenkooda ku cabiraan isla markaana ay dareenkooda ku cabiraan xadhiga loo geysto walaalkood suxufi samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon oo runtii muddo imka 2 toddobaad ku xidhan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa runtii maxkamadana aan la horkeenin dambigiisana aan la sheegin wuxuu yahay oo ah in dambigiisana la sheegin Muqdisho ka soo noqday xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon haddii dambi leeyahayna dambigiisa lagu qaado haddaanu dambi lahayna xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxaan isugu nimid maanta xadhiga lagula kacay samafale wariye cabdimaalig sheekh muuse coldoon
oo in muddaaba ku xidhan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland xadhigaas oo ahaa runtii mid aanu ka damqanayno haddaan nahay bahda suxufiyiinta gobolka Togdheer waxaan jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynaha sharafta leh ugu baaqaynaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon xamar uu tagay laakiin maaha xadhigii koowaad ee lagula kaco suxufiyiinta gobolka Togdheer gaar ahaan suxufiyiinta Somaliland oo dhan xukuumadda Somaliland waxaan ugu baaqaynaa in si hadduu Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon dambi leeyahay dambigiisa in lagu qaado haddii aanu lahayna in la soo cafiyo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon Khalid Cabdikariin Xaaji shabakada caalamiga Jarcad News Burco